بسم الله الرحمن الرحيم. ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed xaaladda uu maanta ku jiro ma aha xaalad wanaagsan. markii aan anigu dhaawacmay gabdhaha Soomaaliyeed ee ila soo hadlay ururka waxay ka baqayeen runtii inuu burburo. sidaas awgeed waxaan ku wareejinay Batuulo Axmed Gaballe oo maanta gudoomiye ah oo aan isla haynay yani qof markaas la shaqeeysay madaxweynaha Sheekh Shariif la taliyo u aheeday oo aan isla haynay maaragtay khibrad hore leedahay oo ururka haweenka dimuqraadiga Soomaaliyeed maaragtay gudoomiye haweenka aheeday gabdhihiina daneynaysa aan gabdhaha guddiga fulinta qaar ku jira waxay dhaheen maaragtay nooli si uusan ururka u burburin waayo khilaaf markaas jiray awgiis. أنا وعن قف قرح كدعي أو ما أعرف إسكحان حسنا هاي سويدن آدي ما كله دي بنا أوكسو ما كهر أولس ناسي أنا هين لوريس أنا قال ما كي عن أوكي هواين كأن سوق من سوق كأنه وحان هين هواين سومالية بسكتوبان وسومالي منه واحد قوة هاي ببعتها الجشتي وحيدبي إني وحكي قطان عيدا كوجرجاري وراديها أي من مدى الصوماليات دي صومالي مدى ما دام هوي وربط المعمول كسوي أفك هوي هذا وحنا لهيني ذك يعني حدود يدي ما أعرف دلوقتي هذا الجشت ذك حالين كريني هوي فيه وحنا كل سنة إن كرتيد قفك إلى يربطان كده سإسكار بصيني وشقيسه ugu doodo haweenki oo dhibaatada markaas hadii caruurta hadii ay dhibaato kala tahay ay dhinaca ka qabtaan markii dhaawac dhacay oo ma aragtay Batuulo aan ku wareejinana waxa duruufaha kulay markaas jiray iyagoo fiirihay waxay ku dhiseen shambeelo oo at least waxay ku dadaaleen inuusan 4.5 naqanin oo dadka qaarkood aan bixin 30 keensada oo haweenkii qabiilada ay u kala qaybiyeen ولو أنا جاهوجا إلى قابض الرياضة أو ماركتي. فور بنتي فاش ما بسورجي. أو ما لقي سورجيدين لكن قبيلة لو بسوف حلو بسي شمبيرات معنا إن دمر كلام سوق أو كلا لو بسي سكستة بها هاتي كل حرب حلو أكيد حد يمتعي إن أفر سنة هي ساليبي إن أفرت السنة dhexdeeda aniga maray soo laabtay waxyaabo badan oo runtii qabihiisu jira waxyaabo badan meesha ka maqnaayeen aniga waxaan islahaa kulli sharciyada constitution-kii iyo waxa laga shaqeynayaa maaragtay maamul marka la sameeyo hadaanan administration loo sameeynin way adag tahay khilaafaadka ka dhexdhexaaya in la xalliyo marka maraan soo laabtay jirto weydiyo maaragtay ururkii maxaa u hagaagay constitution maxaa u hagaagay sidee member looga noqon karaa xuquuqda uu leeyahay qofka memberka ka ah waa maxay qofka haddii oo dhibaatooyin oo ka soo horjeedo ururka hadday samayso sidee looga saari karaa waxaan maqlaayay ururka guriga haweenka maaragtay inuusan dhistaynin oo maaragtay lacag loo raadihayo waxaan weydiiyay in oo maaragtay engineer uu wax ka sameeyay qarashaadka ku baxay maxay tahay hadii dayactir loo sameeyo wax may ka haysaa ma account uu leeyahay ururka oo macnaha qaslaji iyo wax idin hagaaga ma jiro mashruuci uu leeyahay mashruuci la qabto ma jiraan wax ma ka dhimayeen su'aalo aan isleeyahay anigu وأمهم وحيلها مسؤولية دقات أنا أورك أنا ودي هاي لكن ما دام إذا دومي كهذا وحقوق لنا وجود هواين كنا وما معلمتي ما إنسان مركي وقتها حل قبلنا كله هنا ما إنسان معلم مركز أنا جنا هوتيل عندي جنا مركز ولا متاعها الهوتيل كي جاي يمكن قدها قاعد ولو أنجع على إيجو ورجوله إن أنا وقتها وركا قول الهوتيل كي يمكن يجيبه كلو بدك فيلم تجري قاتل سؤالي ما كانوا يجيبوا هوتيل أورينتا
marka labadii kun iyo 15 January meelahaas waxay ugu tiri marka su'aalahaas ay weydiinaysay qoraal soo qor ii soo dhashay waa hayaa qoraalkiisa mailka ugu diray guddiga fulinta ugu diray doomiga ku-xigeenka iyo xoghayaha guud allaha u naxariistay gabadheeda oo hadda dhimata ayayna aan u raacay marka runtii saan filayay isku xirnaashihii nidaamkii la rabay in lagu dhiso umaana arkin in lagu waday dhulka haweenka qaranka Soomaaliyeed markaan su'aalahaas weydiiyeen qabaa conflict badanaa gabdhaha qaarkood ku bilowday oo xitaa meesha ay tagi jireen ay awoodi kari waayeen guriga haweenka inay tagaan كنا وحاول أركي أنا إني بطولة إنسان جعله سنة سؤالها سيبوي بدك لنا وحياة عن أدب والولاية وعن نقطة من وإسلام مهم إلا إن جوجا هوانك نبت اليديس أمانكي سأد أنفوني شن جاء ترجع كيس من الأطراف ما تنا ولا ما أعرف إذا وكدكتوري سام كهذا يسده يسوي حاجة وأنا مهم هواك الصومالية ولا في دورته ما أبتين نبدأ بسدادة وقاعدين تدقق ما عرفت اللي بحسه أفضل بيوتها دولي منو وناك ذكر هذه هاي القديمة هواك الصومالية marka in laga taxadaro meelaha ay imaahayaan oo xafiiska dhiga lahaayeen ee ka qabsan lahaayeen waa muhiimada koowaad oo waxay heeday taasna xalkiisa waxaan muhiim ah hadda adiga soo laabashada adiga iyo su'aalaha haweensiga quraanka ay soo qortay iyo waxyaalo badan oo la qabto loo baahan in la qabto qaban hadda sidee adiga meesha aad tahay tasman ma dhacayo doosha dhacayso ما أوكي بس ما خلصت بعدين. أنا قلت هواك سوالي تدام علي. أول كسيدي سبورو بسنا ولا فلين ولا ولا شيء ولا بدي مرجع وما أعرف هذه اللي بتجرتو. دي بلوغلاته هذا أنا ما كي بساين أي سمين ويوين مهم وهالجماعة ومدرسوا هالجماعة يكجوا إن marka anaga waxa hadda rabnaa waxay tahay ururku waa kala jabsay sababta ugu weyn oo ugu jabsay waxay tahay in xilligiisii oo dhamaaday ko labo in gudoomiyaha Dowladda Axmed Kabale oo decision kaligeed gaarayso oo dadkii maaragtay decisionadooda kala bedelayso maadaama ay qabiil marka hore ku dhiseen waxa dhacday oo dhibka ugu weyn uu ka yimid جبرت حاجين هذا أو حلوان نقطع عن حسن بوس كذي يدو أنا لا تشان معه أنا حسن بدون حاجاني أنا قالوا إيه هذا إن بطولة نوعي هذا أو إيه دانكاس سبندل كمان ده بوس كذي يحسوا جلسة جبرت كلا يدو أنا كلا تشان بدون فلنتي إذا أنت كلا كشنا هدي جبل بيل هان كسوق لسه حتى البيش يمكن أن تقول دي إنسان كلا كشنا إن خلاف وهو ينهرت ماشى سوق بلاوي خلابات قبله يطفن وبين النار ويعني حلقين وجماعة مركا قبل بدن كم دها أو كمعرفة أساسية شيء ضد قار جلال كسوق قلبها هذاني إن واورا هذاني مروا بنحن آد وقصوا برجيني قبلي أسقف صدق إقلاف هذا عين ليرة وحمروا دين اسكديني إن هوس وحل وحامل تقدر بتقول أحمد قبل بقول هواين كقرن كأول احترم وحاني رأباي وقت جوا ماذا بدوني هنا وحان كاربنا هذا ما دام أدي الحيسي إن أب ما أكنوا إعلام سيد وقت دور شد عيسى إن نوس ميسيد كتي ما عرفتي إن دور شو يمكن قبل قارية وحان ربنا قبل والبوس رومالية إني كسوق الكل كتب أو أي أترتمي كتب بسيشة أنا جا ما كان قبل هاي أنتي قولوا قدام سوق شيء
qof ilama kartamaysa ma aysan lahayn oo agagaarkayga taagan iyada markay qabahaysay qof la tartamaysa oo sanduuq wax kula ridaysa dhinaceeda ma aysan lahayn anigaa ku wareejiyo annaga waxa waaye adduunku isbedelay dimuqraatiyadaan baranay waxaan rabnaa si cadaalada oo qof walba ay doorasho u geli karto gabdhaha Soomaaliyeed inaan lagu ciriirinin inuu matalin reer hebel waaye iyo reer hebel ah haysto inaan la dhihin waan jeclaan lahayn aqoonteeda iyada kaligeed inay ila qabto horta qasab maaha laakiin waxaan dareemayaa inayna ila qabin waxaan dareemayaa waqtiga shuuciyadii iyo waqtiga uu ururka jiri jiray ee gudoomiyaha ku-xigeenka ka aheeday oo dictatorshipka u jiray camal inay weli u fikirayso hadda dadka annaga dimuqraatiyaddu waa waxaan ka hadlaa iyada haddii ila qabin gabdho badan aa ila qabo gabdho badan aa rabo xorriyaddii iyo si cadaalada in sanduuq wax laysugula rido gabdho badan aa aaminsan in dhinaca wanaagsan uu isbeddelku yimaado gabdho badan aa aaminsan kartidooda iyo aqoontooda in laga faa'iidaysto rabo marka inaan laga celilinin oon la dhihin ma geli karto reer hebel kama soo qayb geli karaa ama reer hebela keliyaa haysto annaga taasaa ka soo horjeedna si xora inaan xurriyadda inuu xog u dhacaan qasab maaha aniga horaan usoo ururka waa urur madax banaan oo maaragtay sida maaragtay hadda doorasho uga dhacday ururka ganacsiga oo kale olombikada oo kale urur jira waa dowladdii uu ka dhex jira nidaam uu leeyahay si wax loo codsado waa naqaanaa marka waxaan rabnaa dhibaato walba oo dhacayso haweenka Soomaaliyeed inay iyaga dhexdooda xaliyaan annaga dhexdeena inaan xalino oo guddiga marjaca iyo dadka oo maaragtay halgamayaasha aan wada tashano oo guddi doorashooyin aan samaysano oo hawsha macnaha qof walbaba oo rabto inay kasoo qayb gasho karateeriyada ee ugu soo qaybgeli lahayd aan nidaamsano oo doorasho dhacdaan rabnaa dowladda meesha waxay kasoo gelaysaa amniga nidaamka qaarkiis muwaadiniin Soomaaliyeed oo xaq u leh in loo ilaaliyo dowladdan ku dhex noolahay kullayba waa ogosha dimuqraatiyadda iyo in nidaam iyo system yimaado waxaan ka codsanaynaa wixii oo markaas amni ku saabsan ama wax ku saabsan inay nala garab gasho midda kalena waxaan ka codsanaynaa oo hadda aaba maaragtay arjiyo u qoranay dhaqdhaqaaqa ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed in la joojiyo sababtoo ah waxa ka socda cadaalad maaha dhaqdhaqaaqa hadda la wado maadaama uu dhacay hal qof saydarka ka yeelayso dhaqdhaqaaqaas in la joojiyo waa jeclaan lahayn sababtoo ah ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Soomaali meel walba joogto ka dhaxeeya haweenkeeda go'aankeedana iyagaa gaarayo maadaama 40 sano ay dhamaatay in ay doortaan hoggaanka ay rabaan Batuulo Axmed Gabalana xaqay u leedahay inay kasoo qayb gasho waa muwaadinad Soomaaliyeed oo ka mid ah dadka haddii loo codeeyo ay cod ku hesho si sharaf leh aan ula shaqeeyo aadna u jecelnaa codkeena Soomaaliyeed codka haweenkana inaan qof walba ku shaqo leh oo Soomaaliyeed aan nahay waxbaan isku hagaajino isku nadaamnay waxbaan ma aragtay dhiiggeena iyo maalkeena iyo aan gelina halgan haween ay soo wadeen laga bilaabo waqtiga gumaysiga ilaa ay haddan ku jirnaa qofbana xilliye soo qabanaysa qof walbana xilliye soo qabanaysa marka hadeertaan in la qabsado oo dib loo noqdo ma aha uu yimaado anaa saa doona keliya waxaan yeelka maaha marka ka waran haddii arrintiina odayaal ay soo dhexgalaan odayaasha dhaqanka dib soo dhexgalaan
هذا هو ميراث الله ما غير هذا هاو ولا شحال من إذا سوى الميراث إذا ما غير مو ملاها أضياش إن لا أحد كاس أنا فكري معناها ما دي كرام هذا قبيلك ما كي يحكوا لسه عين قبلها أوروبا وين حركة أنا ما كان هاي قبيلكم بس حريات قبلها إني الدلالة كل سنة markii hadda qabiilka loo dhisay rag laga lama tashan oo gabdhaha ay dhaxdooda fadhiistay iyaga ma aragtay shanta beelood si wax ugu kala qaadan lahaayeen u kala qaatay marka ma u maleeyahay in odayaasha ay dhahayaan saas laakiin mamuga adiga ma fahmin ama ka ku dhaxayaa guud aadid ina dabale ماشي بروح الجيم شايف اللي راح دي وغير دي يا هذه أنت كنت فيما يقول هذا هو خطوة فيش حبيبي ده لابد دحدين already بوجو جرا دور شانس ميسان إن قف يعني أورو قف عن شرعي سنين يسين ودينا بتاعه بوقيا لهذا وحيتها أنا قف أو وقت هذا لما عليه أنا قبل مرة بيجي مكشف دور شغل نص سماء وأقول تجمع هكذا حيت اللي هرت عبارة جل مدك الله حيد هذا كونستيوشن كإلا دستور كإلا قبل بميجي جوك تلاقي صوت الشضوات لكن أنا أقرأ لك أنا كوريس هذه قبلها أقرأ لك إيه إذا بعد السفر جالس ساسي ورقة هذا في سؤال ما كأبار إيده جرين ما أغنى يا أخي دولة ده هذا جرسو ولا شعب قالوا صورس أقل كسر على الوبس حلو بس مدحويني برايم مينستر على الوبس أي وزير هذا الوبس ما كأنا مرور بنوع تاجرين أبار كانوا كشقينا إلا أي حد هدان درب حلو يهدان عقب حلو يهدان مشاركين ودبيبي يهدان قريها إردها وقرعن أنا قوينا اللي سادت كده إن ما أعرف الدباتيسية أبار كجستو لكن هذا نوع حارة أبار تمركي جستو وإبجرو ده جعمها يسهيستا وحكي ودي جيرا وحلو قرن لكن ما كأني قال وقفنا قارنا الحقراء قارنا وحل أو لا تشين وحمل هو ده حتى شكيا معها بس آمين لا أنا إيمانيس كرسوني حما إيمانيس ما كو حال ربع اللي اسمه كرسوني قفول بعد كيس ديبن كرو يعني ما أعرف تيدك لا تشن كرو هذا برا فلسطين هي لو شيء سيدا أقول لك صاحب بدن وحان كل سنة بديه ما أعرف دور شوي سمين لهاكو جبنا وأسسوا شرحه أنا قاعد كمده قلت أسسوا شرحه دون أسبوع عن هديه لهرالك أنا guddiga hadaan helno waa inaan degdeg ku dhisnaa si howlaha iyo maaragtay dawladda cusub oo qabsano howlihi aan haynay oo dadkeena haweenka ragga iyo dawladaba aan u haynay aan hore u wadano iyadoo weliba cadcad oo aan qarqaris lahayn oo wixina soo galana sida loogu talagalo ummadda loogu talagalo loogu bixiyo urur in la qabto macnihiisa ma aha in wax laga helayo ama business laga sameeyo لكن وبلشوا ده هذا ونكسن لوجو ولا بدلاي أو رأي والباقف والباقف هواء والباع وكسب لأنه مش بجلس أنا سوى الأذان والنظام سميسن. هذا يعني وقتي عليه مثلا كذا لا يدور حلو سبحان. هرت وقتك أنا كأها دنياها دولة ده قبل هذا ما يلعب بدن ما إنسان قعدتهم دولة فدرال وحكلي وكإسنان بنتلاني هذا النظام دولة قبلات سميسن إذا كجستي أنت كلو قذلك إمادين مركزنا بنتلانا أنا تجي عاشقين سفيان وسودويسي أولك أورنا كجر أور واو اللي يراهو سفيان وشقيها يا سفيان يسودوي هبك وشقيانا واو 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 أورك سفيان يسودوي وحن كبرنا هبك وشقيا وحن دمع سنين ما لبدا إن إيجا نجعوي عن نجع كعوني وحي نوبل قادين إن أن معركتي كسمين حفيز ويش كفرنا
هدي إله رالك نقدنا مالي كلامك إسبدلا وحاسنه جماعة سيدا سوكا حفيز وسميستا مركا دورش سميسين سين أي ضد وبصوت الصدام أمريكا أنا نعي هذا وحبا إسبدلا هذا لكن سيدا هو ويكون أحسن كابنتي marka wada tashiga muhiim haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan fikirka qof walba waxa uu wax sheegtay bari bas ay sheegtay gobolka kale markaas ma dhisnayn aniga markaan hay ma aysan dhisnayn oo yani gadaal waxa ka dhismay Hirshabeelle galmudug maartay koonfur galbeed يعني واحد بدنا هذا الأساس أيتها أنا معناها حوانك قرن كهين هم تواكي شقيها إلى أحد أو بدمان تجي اسمعي تجي وركلا أو حاجر إيه أنا كنتي حاول شقيها مرنا وكمان نستعجل كنتي بس حتى حوانك يهرمر كولا ما عرفت ما لها بقامة اللي جاري دمر يعني إسبدل كسمايان إيه بحجران وهو حمر وبكل ذلك. سوسة مثلا هذين كاس بقول ما درسان سوى حديدك. يدور شكل جلان إن إيه لفت الكور وقصور بالصداع على الضغط. وما عرفت. ما خالي ما هذا حرمت أنت وصلنا حرمت حمر الله. هنا يعني تغيروا ذي مرة إذا ربنا دوشة الأنسيان. طبعا ووحن ربنا بقى. وإن حريرك معركة هواينك معركة إكسو غيب جلان دورشة قفتي إسليه وكفي عنها عدكود كدي بكرام ووحن أدو رجيه نوربنا. سكو حرناشين يوضا شقينتين ومهم. يبقى مية جوكتو عدك هذا وعيون كجرى غيساس. دتنا صدر صدام. waxaa kaloo jirtay markay aan Puntland tagnay oo ay na soo dhaweysay maxaa tiraha caasho geeli oo markaas wasiirada ahayd waxa anaga ururka qaranka haweenka qaranka Soomaaliyeed oo 12 qof ah anaga casuumay oo meesha tagnay waxa isugu yimid gabdho Soomaaliyeed oo Afrika iyo Asia ilaa iyo Canada iyo Europe ka socday runtii meeshaasna waxaa la isugu yimid oo aan kaga wada hadalnay oo lagu asaasay xitaa women without borders waa haweenka aan xuduud lahayn marka haweenka Soomaaliyeed oo meel walba ku nool aan waxay ahayd taladeena inaan meel isugu keeno maadaama aan xuduud lahaynin oo ma aragtay dadka xuduudiyada ka soo shaqeeyay in dad wax kala qaybsadaan xataa yani furfurayaan marka taladaas meesha ka dhalatay waxay sii xoojisay ururka haweenka Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed in la si fiican loo sii aqoonsado laakiin dhibaatada jirtay markii ay walaashay Batuula Axmed bala qabatay howlihii lagu soo daalay xeerarkii constitutionada la soo dhigayay talooyinkii iyo la isu keenay xitaa waxaa jirtay 25 Oktoobar inaan ka dhigano sanad walba maalinta haweenka Soomaaliyeed ay ku wada tashadaan intiina ma aynan hore u sii wadin dhibaatada نهيستان تاسع كمدة أوروبا اللي سي وضع هرمك